dhakhaatiirta gacanta ku haya howlaha cisbitaalka magaalada Shalambood ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si weyn uga dayrinaya xaaladda cisbitaalkaasi waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in cisbitaalkaasi uu u baahan yahay gurmad degdeg ah wariyahayaga Cabdiweli Cali online ayaa warkan inoo haya kani waa isbitaalka Shalambood ee gobolka Shabeellaha Hoose isbitaalkan waxa uu in muddo ku shaqeynayay iskaashi bulshada deegaanka ah iyo maamulka ka arrimiya deegaanka Shalambood balse iminka isbitaalka waxa haysta baahiyo fara badan kuwaas oo looga fadhiyo inay wax ka qabtaan wasaaradaha caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si uu u sii shaqeeyo isbitaalkan oo muhiim u ah dadka ku nool Shalambood iyo nawaaxigeeda sida uu inoo sharaxayo agaasimaha guud ee isbitaalka Shalambood Maxamuud Maxamed Jimcaale isbitaalkan oo guud ee Shalambood marka aan ka hadlo asaga qaybihiisa wuxuu leeyahay qayb OPD ah oo bukaan socod eegta ah wuxuu kaloo leeyahay qayb jiif ee la jiifiyo bukaanada kala gedisan noocyada jirooyinka ay qabaan ama qalliin ha ahaado ama jirooyinka caadiga ha ahaado isbitaalka wuxuu kaloo leeyahay shaybaar wuxuu kaloo leeyahay raajo isbitaalka qalabada uu ku shaqeeyo waxa kamid ah ultrasound ama computer waxa ay dadka u yaqaaneen isbitaalkan sida aan filayo oo dadka intooda badan ay og yihiin waa isbitaalka kaliya ee gobolka Shabeellada Hoose hadda sida saxda ah u shaqeeya isbitaalkan goobaha looga kala yimaado waxa waaye degmada Baraawe oo qaliimo oo laga keenay dadka aan u sameynay hooyooyinka waxa kamid ah degmada Qoryooley Kurtuwaarey iyo degmooyinka kale oo dhan ee gobolka Shabeellada Hoose marka laga reebo Daafeed iyo Afgooye marka laga reebo inta kale bukaanada waxay uga yimaadeen isbitaalka Shalambood bisha hadda aan soo dhaafnay oo bisha 10aad ah qalliinka hooyooyinka Ilaahay uu ku badbaadiyay isbitaalkan waa 8 hooyo waay dhamaantoodna waa bad qabaan waxa aadka mucjizada noogu ah oo aan rabay inaan ka dhawaajiyo waxa waaye Samiire Yarey waxay xabad kula soo dhacday magaalada Marka waxa la geeyay isbitaalka oo Marka waxa kale oo la soo marsiiyay qaybo kale oo sida ceel jaallo oo kale dhamaantoodna waxay dhaheen annagu kiiskan waxba uma qaban karno falilaahi alxamdu wal manna waxa loo soo gudbiyay isbitaalka oo Shalambood isbitaalkaas qalliin loogu sameeyay oo sidan oo kale ah anagu marka ka isbitaal ahaan waxaan rabnaa ummadan oo loogu soo dhiibay dhaqaalaha loogu soo dhiibay ee la rabo in wax lagu qabto ee gobolka Shabeellada Hoose loogu talagalay in loo cadaalad sameeyo la fiiriyo isbitaal walbaba waxa uu qabanayo statistikada cad oo meel walba laga heli karo isbitaal walbaba wax qabashadiisa in lagu fiiriyo marka ma rabo inaan sii dheereeyo hadii Ilaahay yiraahdo baahida isbitaalka waa iska caddahay indhihiina waa ku soo aragteen wuxuu u baahan yahay isbitaalka dawooyin u baahan yahay laakiin waxa aadka murugta noogu hayso waxa waaye sariirihii oo aad noogu yaraaday bukaanka hadii uusan emergency ahayn oo jirooyinka caadiga uu qabo uu ka yimaado magaalada Shalambood waxaan u sameeynaa day care wax la yiraahdo maalintaasaan daweynaa waxaan ku xirnaa shaqaalaha caafimaadka ee magaalada degan in ay gurigiisa daawada ay ku siiyaan sababtu wax kale ma ahane sariirihii aan ugu yaraaday Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose